العالمين ما أنت واحد شوقنا تيد هراء عيد مضى الحمد لله رب العالمين شوق روح بدن بالوجود شراء عيد مضى أساسي خاتمة وحن قدر دار منا إني مرة والبمحي هاي تشرف كذا يوم النمذا ذا دولة النمذا ذا إلاليان وحن كلا عيد مضى كلا دار منا إني إلاليان وحي ما طوي وحي أي قبطان هربتي هورش على فرين الدريا waxaan leeyahay abtiyaal ma rabno dhiigiina ma rabno maxay tahay gudubkiina ma rabno dadariso isdhalay baa leeyahay in dagaal waxba laga ma faa'iido gabdhaha soo barooranaya ragga soo guubaabinaya waxaan leenahay ka daaya ragga guubaabada marka waxaan idin kala dardaarmaynaa ragga inaa ka daysaan guubaabida wadada nabadda aad tustaan baroori waxba idin tari mayso سأكتنا أنا وما برارنا هدي بقولنا لقى دليا هدي من لقى دلوا وسوقها يمد أنا لكن وحن دردار منا مرة والبين دتك الصومالي لماذا هنا لقى تجين إسلام لماذا هنا لقى تجين إهل لماذا هنا لقى تجين دتك واسدالر وأنا اللي هشين دونا أنتي صاحب ده هشين دونته هلا إلاليو maxay ahayd tooyeen Soomaalinimada waxaan ku sugannahay jiida hore ayaamahanba uu ka socday dagaal waxaanu u nimid inaanu garab istaagno ciidanka Khaatumo State of Somalia ana ku hadlaya magaca ururka haweenka Khaatumo waxaan oran lahaa ciidankayga sharafta badan in badan baa jihaad xalaala oo aad dhulkiina leedin ku yimid aad difaac ku jirteen sharaftii iyo maaragtay sidii dhiirigelinta lahayd ee quruxda badnayd ee maaragtay aad u ilaalin jirteen sharafta reer SSC inaad u ilaalisaan waxaan aad uga xunnahay inayna wali iskarowsan dadkii 9 bilood madaafiicda nala dhacayay oo hadeerna gaadmo iyo waxaan loo joogin ay ku dhamaanayaan waxaan idin oran lahaa kuwaana waxaan oran lahaa waa dad Soomaaliyeed ilaahay xaq ah idin fahamsiiyo oo nin walba dhulkiisii uu deeqo ayaa anaga nala qurux badan halka waxaan u nimid wax wanaagsan ciidamadeena garab istaagno oo maaragtay aan waanino dhiirino maaragtay dagaalka markay dagaalamayaan ay u dagaalamaan sidii dadka u dagaalami jireen oo gobonimada ahayd maaragtay ay dhibaato geysanin haday maaragtay maxabuus qabtaan ay dhibaato geysanin ciidamada waxaan u nimid inaan maaragtay waanino garab istaagno dalkooda iyo deegaankooda difaacdaan dad dhibaato u geysanin waxaan ka codsanaynaa oo mar baan ka codsadaa dawladda anaga aan dariska nahay walaalaan nahay daaq aan wada wadaagno ehel aan nahay tol aan nahay dhibaato intaan noogu fulnay bal inta aan ku soo afjarno kulli waa la heshiinayaa carruurta maalba dhimanaysa in la badbaadiyo baltaas maalin waa la heshiin doonaa waxaana waa laga qoomameyn doonaa laan waa wax qalad ah waxaan hadda Muuse bixiyay ciidamadiisa waa wax qalad ah walaalayaal dadarisaanu nahay dadkayga baatihiin dhibaatada aan ugu haysiina idin kala isku haysaan waliba idinka idin xayaan idin turaya inaad joojisaan farintaas afarisa anigoo ah guddoomiyihii ururka haweenka ee Khaatumo SSC insha Allah ciidamadeena waxaan kula dardaarmayaa halka inay dadaalka wadaan shaqada ay hayaan ilaahay la garab galo deegaankooda difaacanayaan dad ma dulminayaan gurigoodii baa loogu soo galaa maalin walba oo mid laga dilaa difaac bay ku jiraan deegaankooda difaacanayaan difaac halka ka sii wada walaalayaal insha Allah waad guuleysanaysiin